madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo weheliyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo maanta soo gaaray magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa la kulmay wakiilada beesha caalamka u jooga Soomaaliya gaar ahaan safiirada dalalka Mareykanka, UK, Sweden, Midowga Yurub iyo Talyaaniga. kulanka waxaa la sheegay in diiradda lagu saaray sidii Soomaaliya uga dhici lahayd doorasho isla ogol yahay oo xilligeeda ku dhacda, taas oo xilligan ka turjumaysa himilooyinka shacabka Soomaaliyeed. mas'uuliyiintan ayaa maanta soo gaaray magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana qorshuhu yahay inay la kulmaan madaxda qaranka. Mahad Mutawakkil, Honkebel TV, Muqdisho. magacaygu waa Suldaan, magacaygu waa Seeraar. isku si ayaan u hadalaa, isku sina waan u labisanaa, isku midna waanu nahay. anigu waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. warmaahe run miya? waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash. bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. caadi ma aha. maxaad mar hore igu sheegi weyday? fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya. Samtel, shirkadda dadweynaha.